waxay tiri dhakhtarka ayaa ii sheegay inaanan weligay aanan dhalayn oo aanan wax ubada aanan helin haba yaraatee balse ninkeedii ay aadka u jeclayd markii ay u sheegtay arrinkaas kana dalbatay furiin ayuu ninkeedii tallaabo aanay filayn booskana aan ugu jirin ayuu qaaday. haddaba maxay tahay tallaabadaasi barnaamijka ayaynu ku daahqaadaynaa. ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahay subscribe saar asxaabtaadan la wadaag soo dhawaada barnaamijka. isla markii meherkoodu u dhacay kadib waxaa la soo darsatay xanuun iyo dhib wejigeeduna waxa uu noqday mid kale oo aan fiicnayn oo waa u qalalayba. sidaa daraaddeed waxay u tagtay dhakhtarka si ay u ogaato xaaladeeda caafimaad. waxaana la yaab ku noqotay gabadhan jawaabtii uu siiyey dhakhtarku. ma ku yidhi ilmo galeenka ayaa ku dhaawacan, makaankaaga ayaa dhaawac halis ku yaala, wuxuuna u dhow yahay inuu laba u kala dilaaco. haddii aanu noloshaada badbaadino weligaa uur ma yeelan doontid, ilamaana ma dhali kartid oo wax ubada haba yaraatee ma heli doontid. waa haddii aad doonayso inaanu kul badbaadino ee laba daran mid dooro ayay ku noqotay gabadhan. waxay hadda ka soo baxday cisbitaalka. waxaa keliya niyadeeda ku jiraana waa sidaan ninkayga ugu idhaahdo uguna sheegi lahaa arrinka dhibaatada ah. ma iga tegayaa, ma iga cararayaa, aad baan u jeclahay bay tiri isaga, maxaan sameeyaa? waa talooyinka ay idin weydiinayso gabadhan oo dhacdadeeda noo sii wada ayaa waxay tiri waxaan qaatay teleefoonkaygii, waxaan isku dayay inaan waco isaga in ka badan hal mar, balse markii dambe waa uga qabtay telefoonkii oo wax walba waan u sheegay bay tiri. jawaabtiisuna waxay igu noqotay wax uu qalbigaygu xamili waayay. wuxuuna igu yidhi ma awoodi doono inaan kula sii wado nolol, waxaan rabaa caruur. maaha inaan hadda guri sii wada joogno intan in ka badan, ubad ayaan doonayaa, waqtigu waa u yaryahay, ma awoodo inaan nolol kula sii qaato ayuu ku yidhi. afkiibaa juuqda gabay waa halkii Saade Cali allaha u naxariistay xitaa erayadii xodxodashada iyo jacaylka ahaa ee ay ugu yeeri jirtay wicitaan kasta way u sheegi kari weyday. markaasay iska aamustay oo waxay ka sugaysay inuu u sheego inuu kaftamayo oo dhayal iyo cayaar ay waxaan ka tahay, oo uu sheego taariikhda arooskooda oo ay ka codsato inay u soo dirto sawirada noocyada taajka si ugu sheego midka ka qurux badan iyada ama midkii ku soo bixi lahaa ee xafladda arooska ay xidhan lahayd. laakiin taasi waxay doontay uunbuu ahaa oo riyo ayay ka ahayd. wuxuu ku yidhi berri subaxii ayaanba ku siinayaa warqadaada oo aan ku furayaa, ilama aqalgelin, nolol maanaan wadaagin, keliya waxaan u sheegay in haddii aan uur qaado makaankaygu ama uu ku jirku laba u kala jabayo. dhakhtar bay ka soo baxday gabadhani oo xanuunadeedaba dib ugu filaa. hadalkii ninkaasi qaadan waabuu ku noqday, halkiibay ku miyir beeshay oo ku suuxday. markii ay soo miirsatay ayay is aragtay iyada oo guriga joogta. hooyadeedna gacanteeda ayay laabteeda ku haysay, waxayna ka dhunkatay madaxeeda. gabadhi ayaa bilowday oohin aad u badan, waxayna tidhi hooyo wuu iga tegay, wuu iga dhaqaaqay markaa aad ugu baahnaa ee aan garabkiisa aan doonayay, dhinacaygana u taagnaan lahaa. waa caadi bay tiri hooyadii gabadhaydii, markastoo ay khiyaano inagu dhacdo qalbigeenna la jabiyo waxaynu xasuusanaa sababaha adduunka iyo daawada, laakiin ma xasuusano awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala. hooyo bay tiri miyay ahayd inuu waxaan sameeyo? maya bay tiri gabadhaydii. su-aalahaasi ayay weydiinaysaa oo leedahay hooyo miyay ahayd inuu waxaan sameeyo ninkaygii aanan weli is aroosin? maya bay tiri gabadhaydii. waxay odhanayaan ma annagaa wax ku leh
arrimaha dhacaya. laakiin hooyo ilaahay wuu ugu jawaabay, waxaad ku dhahdaa nebi maxamed arrimaha oo dhan waxaa maamula oo iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa inaad ku soo noqotaa sidii aad ahayd. laakiin waan jecelahay isaga bay tiri hooyo, aad ayaan u jeclahay, qalbigayga ayuu yaallaa. balse erayadan iyo furiinka kama aanan filanayn. inaanu qoys wanaagsan aanu noqono ayaan doonayay. hooyo ilaahayna wuxuu og yahay cidda ku habboon jacaylkaaga bay tiri iyo inaad jeclaato. arooskaygii ma halkaasu ku baaba'aya? waa ereyada ay weydiinayso hooyadeed iyadoo ooyeysa. hooyadani waa hooyo ilaahe samir ayay leedahay. samir oo dulqaado bay tiri hooyo, waayo maanta oo kale waxaad u baahan tahay dulqaad iyo tala saarasho ilaahay subxaanahu wa tacaala. iska samir bay tiri hooyo. maalmo iyo bilo kadib ayaa laga soo gudbay, caafimaadkeeduna xoogaa wuu fiicnaaday. laakiin ay uur yeelato wuxuu ahaa mid aan suurtagal ahaynba, macquulba ma aha, sida ay dhihi jireen dhakhaatiirtu. sanad kadib nin dhalinyaro ah oo akhlaaq iyo diin leh ayaa u soo jeediyey iyada inuu guursado. wayna diiday iyadoo ka baqaysa inuu mar kale qalbigeeda jebiyo, waayo kii hore ayaa qalbigeeda jebiyey. laakiin mar kale ayuu haddana guur ka dalbaday oo way ogolaatay inay isguursadaan. aabbaheed ayaa dhigay taariikhda iyo goorta uu gabadhiisa siin doono, waxayna ku tiri ma dhali doono caruurniyo la soco, war caruur ma dhali doono. wuxuu ku yidhi iyada, maxaa diidaya haddii aynu talo saarano ilaahay oo caruurina siiyo? yaa hor joogsan karaya xabiibadaydii ama jacaylkaygii? haddii ilaahay ogol yahay, ilaahayna doono inaynu ubad helno, ilaahay subxaana wa tacaala yaa hor istaagi karaya ayuu ku yidhi. afkiibaa juuqda gabay. waxay ku tiri maxaa diidaya inaad qof kala guursato oo caruur kuu dhasho adiga? markii ay muddo aamusay ayay su-aashaasi weydiiso ku tiri maxaa diidaya inaad qof kala guursato oo caruur kuu dhasho? wuu aamusay wiilkii. sidee qof miyir qaba u guursadaa naag ma dhalaysa isaga oo og in aysan caruur u dhali doonin oo aan wax ubadaanu ka heli doonin? waxaad isweydiin doontaa sidee qof miyir qaba uu u qaadan karaa go-aankan oo kale, isagoo heli kara gabdho ka qurux badan oo awlaad u dhali kara? muxuu isaga indhatirayaa hadalka dhakhaatiirta ee ah inaynan gabadhani suurtagal ahayn inay weligeed dhasho caruur oo aanay wax ubada aanay dhali doonin? haddaad su-aashaa isweydiinayso, marka waxaa ina siinaya caruur ilaahaygiis nebi maxamed soo diray subxaanahu wa tacaala. waxaa caruurina siinaya ilaahaygii nebi sakariye siiyey caruurta, ayuu ku yidhi. ma dhegaysanayo hadalka dhakhaatiirta iyo hadalka dadka kale iyo waxaad adigu aaminsan tahay, ayuu ku yidhi. waxaana caruurina siinaya ilaahaygii nebi sakariye siiyey caruurta. way aamustay muddo cabaara, wayna ogolaatay. meherkii arooskii ayaa dhacay. in ka badan 3 sano markuu qabay ayay uur yeelatay. cunugii ugu horreeyeyna waxayna dareentay sidii in adduunka oo dhan uu ifay. farxad aynan qiyaasi karin ayay heshay. waxay aadi doontaa suuqa si ay dhar ugu keento cunugeeda, iyada iyo ninkeeda, oo ay kolba ku leedahay ninkeeda keebaa qurux badan, kan mise mid kale? ma wuxuu noqon doonaa wiil mise gabadh? ma anuu ekaan doonaa mise aduu ku ekaan doonaa? macaankaygiio ama jacaylkaygiio. erayo noocaas ayay weydiinaysaa iyagoo suuqa jooga. waa markay uur 3 sano kadib ay qaaday gabadhani muslimada ee Soomaaliyeed. nasiib darradii ugu horreysay ayaa ku timi
ilmuhuna ma uusan sii dhaafin wax ka badan 6 bilood. uurkeedii inuu ku biiro oo ka burburo ayay noqotay. kadibna wuu dhintay ilmihii yaraa. waxay ku tiri ninkeedii markay ka soo kacday cudurka, miyaanan kuu sheegin inaanan ku siin doonin ilmo noloshaada quxiya? dhega adayga ayaan kugu nacay. nasiib darradii ugu horreysay ayaa ku timi gabadhan. ilmihiina ma uusan ku sii noolaan uurkeeda wax ka badan 6 bilood. kadibna waa uu ka dhintay. waxayna ku tiri ninkeedii markay soo kacday cudurka, miyaanan kuu sheegin inaanan ilmo ku siin doonin iyo farxad? intuu dhoolla caddeeyey buu yidhi, miyaanan ku odhanin haddaad samirto way u wanaagsan tahay kuwa samra ee samiro samirka badi. waxay ku tiri, miyaad iga tegaysaa hadda? haa, waan kaa tegayaa, laakiin waxa keliya ee iga kaakaxayn karaa waa dhimashadaada. dadna waxaan ku soo noqon doonaa inaan mar kale jannada ku wada kulanno. keliya waxaan kaa tegayaa markaan qabriga ku geliyo oo aad dhimato. haddii aan noolahay si kale kaagama tegayo. sanad ayaa ka soo wareegtay oo haddana uur yeelatay. markan aad bay u baqaysay, sidaa daraaddeed waxay go'aansatay inaysan sariirta ka kicin. way ducaysan jirtay oo way seexan jirtay. ninkeedana wuxuu ahaa adeegaheeda. muddadan wuxuu aadi jiray shaqada, haddana markuu shaqada ka yimaado ayuu iman jiray si uu cuntada ugu diyaariyo, gurigana ugu nadiifiyo. wuxuu indhaheeda ku arkaa heerka ay gaarsiisan tahay, hilowga ay u qabto ilmaha iyo jacaylka weyn ay u qabto, iyo inay aragto ninkeeda oo ciyaarsiinaya ilmihiisa. sidaa daraaddeed isagu wuxuu ku sii leeyahay farxad. xaaskiisa wuxuu ku sii xoogaystaba oo uu mar kasta samirka u sii badiyo una waaniyo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ilaaliyey uunbaa ilaashama. saacaddu waa habeen badh, waa 2 habeennimo. waxay ku jiiftaa laabta ninkeeda, isaguna wuxuu ku tiirsan yahay gidaarka. wejigeeda ayuu gacantiisa ku salaaxayaa. way soo baraarugtay. dadna waxay aragtay ninkeedii oo ku dulgamay. way kacday, kadibna waxay dareentay xanuun, laakiin nasiib darro ilmihii kalena wuu ku dhex dhintay uurkii hooyadii. mar labaad ayuu gabadhan uurkii ka dhintay. run ahaantii markan waxay la kulantay murugo. markaa ninkeedii wuxuu bilaabay inuu la fadhiisto si uu u samirsiiyo. markaasuu intuu laabtiisa gilgilay wuxuu ku yidhi, nebi ayuub markuu u yeedhay rabbigiis subxaanahu watacaala, dhib baa i gaadhay. adiguna waxaad tahay cid naxariista kan ugu naxariista badan. ilaahayow, adaa aqbalay ducadiisii. nebi sakariyana markuu ku dhawaaqay ilaahay uu yidhi, ilaahay ha iga tegin keligay, adiguna adaa u khayroon kuwa dhexda iyo adduunyadan iyo koonkan dhula sameeyey. ilaahayow, adaa ducadiisii aqbalay oo nebi yaxye ugu bushaareeyey. ee fadlan anigana ilaahayow ii naxariiso. ilaahayow, waxaadna siisaa ilmo uu ku qaboobo qalbiga sida naarta u ololaya ee xaaskayga. iyaduna aamiin bay ku tidhi. wuu ducaynayaa. markaasuu ninkii bilaabay habeen oo dhan inuu ooyo ilaahay oo uu ka baryo inuu ka farxiyo qalbiga xaaskiisa. hurdadiisuna way yaraatay sababtoo ah tukashadii buu badiyey. habeen kasta markuu seexdo xaaskiisa salaad ayuu u soo kiciyaa. jidhkiisuna waxaa daciifay oo dhan ayuu caatooday wiilkani. oohinta iyo baryootanka ilaahay baryayo ayay ka muuqataa jidhkiisa. maalin maalmaha ka mid ah markay ka kacday sariirteedii oo caafimaadkeedii fiicnaaday, waxay aragtay daciifnimo ku dhacday ninkeedii.
waxayna cod dheer ku tiri gabadhani, maxaa kugu dhacay sidaan kuu daciifiyey? Maxaa kugu dhacay iyadoo ooyeysa? Wuxuu yidhi oo ugu jawaabay, waxaa jabtay ushii aan ku taagnaa. Waxay ku tidhi, ul maxaya? Wuxuu ku yidhi, adigu waxaa tahay tiirkan ku taaganahay. Adduunka markii xanuunku ku haleelayna ma aanan helin cid aan cuskado, markaa waan jabay. Maalin baad igu tidhi, maxaad qof kale u guursan weyday ood caruur kuu dhasho caruur ku siisaa? Ma xasuusataa su-aashan? Waxay tidhi, haa. Wuxuu yidhi, sababtoo ah waan ku rabay, waan kuu yimi, kuumana aanan guursanin inaad caruur ii dhasho darteed. Waxaan kuu guursaday inaad ii noqoto tiirka aan ku istaago. Waxaan kuu guursaday maxaa yeelay waan ku jeclahay. Maxaan sameeyaa si aan u kabo usha noloshaada ee jabtay hadda? Haddii aad keliya u ogolaatid inuu Ilaahay arko samirkaaga, yaa noqon lahaa midka kaba usha noloshayda. Waan adkaysanayaa, waana samrayaa. oo sidee sabirku u noqon karaa samir marka samirka ay la socoto kalsooni darro? Waxay tiri, maxaa sameeyaa haddaba? Ku sabir, hubaal kalsooni iyo baryo aad Ilaahay barido, maxaa yeelay cibro qaadasho ayaa ku jirta. Qisooyinka Ilaahay inooga warramo dhibaatada ay soo mareen dadka uu jeclaa oo dhammaan nebiyadii iyo saalixiintiiba Ilaahay qisooyinkaas oo dhan kuuguma wada sheegin keli. Wuxuu inoogu sheegay saan ugu wax qaadano una barano macnaha samirka. 2 sano ayaa ka soo wareegtay, waxayna yeelatay uurka cunugii saddexaad. Laakiin markan Ilaahay wuxuu rabay inuu tirtiro sababaha murugadeeda ee dunidan sabirkeeda dartiis. Waxay dhashay cunugeedii ugu horreeyay. Dhakhtarkuna wuxuu ka soo baxay qolkii ay ku dhashay, wuxuuna yidhi, ma garanayo sida ay taasi ku dhacday, sida ay uur yeelatay ee uurka u sii waday, sida ay u dhashay cunuga caafimaad qaba. Ninkeedii oo walbahaar badan ka muuqdo, maankiisana ay ka guuxayaan su'aalo badan oo ah, may noolaan tolo xaaskaagu? Ma laga yaabaa inay dhasho ilmo nool? Soo ma dhici karto inay labadooduba israacaan? Wuxuu arkay dhakhaatiirtii oo ka soo baxaya qolkeeda, su'aalaha isagoo isweydiinaya. Si ugu qalbi qabowsado xaaladda ay ku sugan yihiin xaaskiisii iyo cunugiisii, ayuu weydiiyey dhakhtarkii su'aalahan. Ma fiican tahay xaaskaygii? Waxaad u malayn in xisbiga Ilaahay ka tegi doono kadib markii qalbigu uu ku adkaystay inuu weydiiyo su'aashaas. Kadib markay saa indhaha u kala qaaday, waxay aragtay hooyadeed inay dhoola cadaysay. Ayay ku tiri, hooyo gabadhaydii, miyaanan kuu sheegin Ilaahay si fiican u ogyahay yaa ku habboon jacaylkaaga? Waxaana dhici karta inaad wax necab tahay oo adiga kuu fiican tahay. Waxaana dhici karta inaad wax jeceshahay oo adiga ay kugu xun tahay. Ilaahayna waa ogyahay midka cidda u qalanta jacaylkaaga. Maanta adigu waxaa tahay hooyo 2 caruur ah, waayo Ilaahay waxa uu wanaag ah ee qalbiga ku jira ogyahay. Wuxuu ku siin doonaa wax ka wanaagsan wixii laga qalay. 2 mataana ayay ku dhashay sida gabadhaas, waxayna ku heshay samirka ay Ilaahay u samirtay subxaanahu wa tacaala. Marka daawadayaal, qisadan waxaan idinku soo wadaagay in qof kastaaba uu ku samro dhibaatada hadda haysata. qisadan waxaa idin soo jeedinaya anigu Maxamed Cali Daaha, waxaanu soo gelin doonaa channelka Dhuxul Media. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar, muuqaalkana like saar si uu faafo bulshada Soomaalida uu gaaro.